waxaa ka dhacday dhinacan koonfurta dhulkan wixii afgooyiya ka shisheeya oo beeralayda ah qiso dadkii xogogaalka ahaa ay ii sheegeen weliba hal qof ka badan ayaa qisada ii sheegay muddo hore ayayna ahayd 95 meelahaas ku beegnay xilligii qaxa iyo dhibaatadu ay taagneed bay ahayd nin baa wuxuu ku habsaday nin dhulkiis beerihiis iska fashay ninkii baa soo laabtay dhulka lahaa oo qax ka soo laabtay markuu yimid buu yiri beertaan ana iska leh kii daalimka wixii waxba anugu kuuma hayo dhulkaan ana iska leh mana imaan kartid magaaladii tuuladii beeruhu ku yaaleen buu tago dadkii buu la hadlo wuxuu garanayo hore buu la kulmo wuxuu yiri soo ma garanaysaan inaan hebel ahay beertayda soo ii garan maysaan ninkaan idinka ishayb wadaagtaane isgaranaysaan ninkaan igala hadla daalimka ah anuu meel aan aadayo meel aan u qaxayo bal dhulkayga inaan fashaan rabaa odayaashii waxay u tageen ninkii bay la hadleen inuu ninkaas beerta leeyahay oo ka cararay kuna soo laabtay doonahay in lagu wareejiyo beertiisa uu fasho waa diiday waan bay sameeyeen waxay yiraahdeen waa yahadee kala bar aan ka dhigno barna asaga si barna ha kaaga tanaasulaha ku daayo soo dhameeyay buu oo yimaadeen waxay yiraahdeen hadaa barka tanaasuleysid oo bar aad u daynaysi asaga adiga barka kale waa lagu daynayo waa nin baahan oo xoolihiisa u baahan inuu tabcada u baahan waa aqbalay markaasuu qaybtiisii beertay kiina daalimka ahana qaybtii kale u beertay waxaa soo dhalato soo baxday qaybtii ninkii xaq lahaa si fiican bay u soo dhalatay waana u mira dhashay qaybtii kalena markay soo baxday iska gubataba kii daalimka ahaa wuxuu yiri waxa ii muuqata ninkaani inuu isixray oo sixir uu ii maleegay oo beertaydu sida ay ku gubatay intuu yimid oo xabad soo qaato shan xabad ku dhuftay dil buu ugu daray xaqiisii buu qaatay dilna waa ugu daray markuu dilay ayuu yiri hal qaado baqtigiisa hal xabaabo magaaladuna ka aad dadkii waa qaadi waayeen ninkii dhulkii waa laga rujin waayay isagii baa u tageen waxay ninkana waa qaadi waayay dhaqaajin laana soo laabto wuxuu yiri see u hadlaysaan see u qaadi weydeen ana idin la qaadaya keena markuu qabtay waa fududaadaba godkii markuu geeyay ayuu yiri soo dhiiba gudahan galayaay gudihii markuu galay oo saa u dhex istaagay oo meydkii saa u dhigay gudaha ayuu ku dhigay dhab oo qabsaday ninkii cabaad buu ku dhiftay wariga fujiyo meydka iga fujiyo dadkii markay arkeen ninkii daalimka ahaa oo qabrigii dhexdiisa u taagan oo dhawaaqaya meydkiina uu ku dhagan yahay ayay intay argagaxeen kulligood meesha ka cararay qoraxduna mar ay sii gaabanayso sii dhacaysay ahayd dadkii waa argagaxeen magaaladii bay iskugu tageen hal qof oo ku dhiirada inuu soo laabto waa laga waayay markii waagu bariyay ayaa la yiri meeshii aan fiirin waxa loogu yimid labadoodii oo meyd isla ah oo kii daalimka ahaa uu hooseeyo kii uu dilay oo madluumkaan uu koreeyo ciida lagu wada xabaalo lagu wartay cuqubada qofka daalimka ah axyaanan waxay ugu imaanaysaa asagoo nool ayuu silcu dhimanahay mar maalkiisay galaysaa mar caafimaadkiisay galaysaa masaa'ib kala duwan baa ku dhacaysa